isbitaalka weyn ee magaalada Xariirad ee Ugaas Mustafa isbitaal ayaa maanta waxa booqday wafdi iskugu jira maayarka magaalada Xariirad Master Umar Macalin Araye maayar ku-xigeenka magaalada Xariirad Mustafa Ali Dambil iyo marti sharaf kale halkaas oo ku soo eegnay qolqolid qaybaha uu ka kooban yahay dhakhtarkaas oo ay gacanta ku hayso qurba joogta beesha Ciise iyadoo halkaasi aan ugu kuurgalinay xaaladda guud uu ku sugan yahay isbitaalkaasi isagoo dhismihiisu uu meel wanaagsan marayo isbitaalkaasi balse muddooyinkii ugu dambeysay ayaa wuri jineerka gacanta ku haya Master Dabar Daahir Meydani ay ka soo dhex gashay mashaakilaadkii ka dhashay magaalada Xariirad ugu horeyn waxa ka hadlay aqli jamaaciye waxa uu mahadnaq balaaran u celiyay guud ahaanba qurba joogta beesha Ciise isagoo ugu mahadnaqay sida weyn isku xil qaadeen waxa uu yiri كدب أوشا واتنوقبتين وأنا ولي جاي أنا وحتى صباح الليل أنا نعرف موضوع يقولوا ده صورتين من ده واحد صورينا أنت كهدي كذا صورة ما يصيره وما نكتبه وصورة جاي صورة أنا جوا على الجامعة هي موسى كذا وأنا مهندس جا ما في واحد صوب ما نوكل وأنا مسؤول منه وأنتي ما ركزتي سيئك عن شوية وحكاية الفونين هنا جا فونين ما ركزت مستعد si kastaba ha ahaatee isbitaalka weyn ee Ugaas Mustafa isbitaal ayaa isagu markala dhameystiro waxa uu noqon doonaa isbitaalka ugu weyn ee magaalada Xariirad kaasoo daweyn kara kaasoo kafayn kara baahiyaha aasaasiga ee deegaamada sida Habaas iyo Cabduqaadir iyo deegaamo kale oo la mid ah oo hoos yimaada guud ahaanba deegaanka Xariirad waa Cabdi Maxamed Cabdilaahi Shilila News magaalada Xariirad.